بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan ku sugannahay hoolka guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland xulidda baarlamaanka ayaan ku sugannahay annagoo ah odayaasha dhaqanka qaar ka mid ah oo aan ku hadlay afkooda anoo afhayeenka salaadiinta dowlad goboleedka Jubbaland ugaas xiiray halkan saaka waxaana loogu yeeray arrinta xulitaanka baarlamaanka inay guddiga waxay hayaan iyo siday wax u xulahayaan in annagii odayaasha ee dhaqanka ee halbowlayaasha ayna markhaati geliyaan sida ay wax u xulahayaan saasaan saaka u imaanay waxayna tuseen dukumiintigii waxayna tuseen wax cad oo baraatika ah sida ay wax u xulahayaan dadka waxay weydiinayaan su'aalahaasoo ka koobnaa ilaa 23 su'aalood ayay noo bandhigeen waan aragnay waan fiirinay hortaanada waxay dadka kaga qaadeen imtixaankii xildhibaanadii baarlamaanka ku tartamayay ayaa halka imtixaan lagaga qaaday goobjoog baan ahayn waxaan isleenahay siday wax u wadaan ama geedi socodka baarlamaanka waxay Jubbaland caado u leedahay inay marka hore ay xulaan dad ay ku kalsoon yihiin marka waan ku qanacnay waxaanan leenahay wixii ay meesha soo bandhigeen inay kaga dayato Soomaalidu yacni heer qaran bay ahayd waana ku qanacsannahay marka waxaan leenahay dowlad goboleedka Jubbaland ragga ay u xishay halka inay sameeyaan oo rag u qalmo weey odayaashana way hadli doonaan geedi socodka ay wadaan wali waxaan ugu daraynaa wanaageeda inaan waanu ducaynaynaa maadaama aan u aragnay oo fiirinay hatta beelihii bay kala qaadeen waxay dheen federaalka yaa ku fadhiyay Jubbaland yaa ku fadhiya maxaa jira jifada way kala baxaysaa dadku waa qabiil oo waa basalo uu kala waxay jifada maanta ku fadhiday iyo tii kolka hore aan ku fadhiin ayay hatta cadaalad u qaadayeen oo ilaahay maxal xaqqa ku leedahay halkana maxad ku leedahay si dadka uu cadaalad u helo hadda wax ka wanaagsan la raadin cadaalad aan hayn maxay tahay aad bay u mahadsan yihiin geed socodka ay wadaana waa ku raacsannahay 100% waana garab taagannahay waana ku faanaynaa waxaanu nahay odayaalka dhaqanka ee reer Jubbaland waxaan ogala yeeray doorashada Jubbaland hoolka guddiga doorashada Jubbaland waxaan ogala yeeray inaan ka qayb galno dadka doorashada siday arrimaha u dhacayaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay siday wax u wadaan guddiga doorashada waa wax lagu kalsoonaado weeye dadka waxaa laga qaadaya imtixaan awal iyo aakhirba ah imtixaamkaas oo waxbarashadiisa waxa ugu jiro Jubbaland waxa ugu jiro federaalka iyo waxa laay wuxuu soo maray waxbarashadiisa iyo wuxuu ka qayb galay haatan ka hor hadduu dambi ka galay waddanka asaas dambi ka gelin waa la weydiinayaa urur diimeed inuu soo maray baa la weydiinayaa wax kastaa la weydiinayaa waa ku faraxsannahay aad baan ugu faraxsannahay annaga haddaan nahay odayaalka dhaqanka anigoo ah ugaas maxamed ugaas xasan ugaas yarow sidaan u arka aad iyo aad bay kalsooni ii gelisay waana ka raalli baana ka nahay reer Jubbalandna si wanaagsan bay wax u wadaan guddiga doorashada si wanaagsan oo kalsooni leh yay wax u wadaan annagana raalli baan ka nahay geekamay goobjoogku ana ama ku qayb galnay bilowgii xulidii baarlamaanka labaad ee Jubbaland xildhibaanadii xilliguna hata roogna la xulay qaabkii guddiga interviewga ku qaadeen ama nidaamkii aan lama caamilayeen oo hay madwada oo qarsoodi anka jarna runtii la record cadaalad ee ku dhiyo hayta meel guddiga ida aan dadaaleen qofkaas process ee dhon iyo awale nololis
buusaha ka mari ama waxbarasho haatoy ama shaqo haatoy ama nidaamyo kale haatoy walwalba imtixaanaad oo guuda lagu qaaday imtixaankana kol isku arhay mahayna dukumenti yahay dadka horyaali xaqiiqdii ma ay kornaha guddiga doorashada Jubbaland haddii bani aadam ba inas mahadnagaw walleen kama hadnagaw yaa suubiyaan dhalinyarada iyada in shaqeeyaan niman aqoon-yahano asal bal ku fiirsidii magacaawidii oo haytay laazim sidii hata walaan wadan iyadaan ka qanacsana ilaahay haddii in diidnana tii Soomaali oo dhan ka dayda doonto in nagada doonto ee jeelna biidin illaahi taala anta dambaan oo odayaasha dhaqanka amay inoo codsadana inuu goobjoog ku haadna si naneeska dulmina leenka arna wala la hoosgeli hebla la dulmi wal waadaha oo dhan isla aragaan oo guddi ee shan qofka kooban shanta beelood ana oo ku kor joogtay inoo la roogno barnaamijkiisa oo kula qeyb qaadana marka arrintayeeda arrin oo natiijadii faylahaado doonto haddii ilaahay raali kana unoon raali ku ana sadageekii aan dhayo hayta ilaa ku dhamaatona may ogaada saana ani isla jara doogna